Puntland, madaxweynaha dowladda federal Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si rasmi ah u shaaciyay in ciidamo dowladda federal Soomaaliya ka tirsan ay Puntland ku sugan yihiin, isagana ay ka amar qaataan. Sidan oo kale ciidankan waxaa horay u qiray madaxweynaha Puntland Said Deni isagoo ka khudbadaynaya. Ciidankan waxaa laga qoray gobollada Sanaag, Highland, Bari, Karkaar, Nugaal iyo Mudug. qiyaas ahaa waxaa la sheegaa inay gaarayaan 2,000 oo askari, waxaana u badan dhalinyaro iyo ciidamo hore oo Puntland ka tirsan. Ciidankan ujeedada ugu sareysa ee loo sameeyay waxay ahayd in doorashada Soomaaliya ay ka hirgeliyaan Puntland, sidoo kale ay kaalin dheelitir ah ku yeeshaan xukunka Puntland sida saraakiil iyo xaqiijiyeen. Dhammaan ciidamadan intooda badan waxay si shacbi ah u joogaan magaalooyinka Puntland, waxay si joogto ah u qaataan mushaharkooda marka laga reebo ciidamo kooban oo ka mid ah kuwa furimaha calmiskaad ku sugan, kuwa saraakiil la socda iyo kuwa xerooyin ku sugan. Ciidamadan waxaa dowladda federal Soomaaliya ku qalqaaliyay inay qaramayso siyaasiyiin ka soo jeeda Puntland oo hadda xilal ka haya dowladda federal Soomaaliya iyo kuwa taageersan oo aan xilal hayn. Ujeedadoodu waa in madaxweynaha Puntland Said Deni lagula loolamo lagana hor istaago inuu keligiis go'aan ka gaato xildhibaanada dowladda federal Soomaaliya haddii doorasho dadban la aado. Iyo doorashada Puntland 2029 uusan isa soo sharaxin Said Deni doorashadii 2022 ee dowladda federal Soomaaliya ayuu boobay oo laga xishooday. Doorashadii Puntland 2024 ayuu boobay oo nabada Puntland aan u tanaasulnay, laakiin walaahi buusan doorasho dambe siduu rabo ka yeelanayn. Ciidamadan midaas ayay ka shaqaynayaan iyo inay sugaan dastuurka Puntland. Haddii shakhsi uu dalka siduu rabo ka yeelayo Maxamed Siyaad Barre lalama dagaalameen, ayuu igu yiri mid ka mid ah siyaasiyiinta Puntland oo arrinkan aan wax ka weydiiyey. Ciidamadan waxaa saameyntooda la ogaan doonaa bilowga 2026 oo duufaano waaweyn oo siyaasadeed ay Puntland ku soo wajahan yihiin.